koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan irka loo ganay wayada soo foorarte nin welbow filabaa la yidhi maday isaaqow fallaartaas cirka loo ganay ninka u ganayay u taallaa ma dacwadii badda kenya loo sahlayabaad ka wadaa doorashadii galmudug lagu kala baxa miyaad ka wadaa war etoobiya iyo kenya nuskaan haystay miyuu ka wadaa ma jubbalanaa la sii go'doominahaad ka wadaa maday isaaqow dowladda xilligeeda ayaa sii dhammaanaya miyaad ka wadaa war ma somalilan baa la aqoonsaday baad ka wadaa axmed madooba kenya iyo etoobiya isku diray miyaad ka wadaa aroos sagaaro male ugaarsa kare maad ka wadaane warna miyaw maad ka wadaa dantoo iska dhaaftan fillaarhooba irkilingabalan welba madisheegaanta saarwaya ka dhiyaasa ma oga maamulkii lambalansanaayay galmudug waayahanba la hadalhaay wasiirka arrimaha gudaha geega may basaday dhuusamareeb mayba eray ama fad ama halla fadnay meelaan dawlada ka dhaladaas dawladana lansuubiye ahlul sunana malan dhutiyawa eri hangaraari lutokogohi dararjay mandhaamada unan dareerkan mandhaamadaano eri maamulkii ahlul sunana may leeyiina unana baarlamaan goone e wadhisadaana marka meele mayka aalay lama baarlamaan hooba lehele lama madwiine noo bahan way lama madwiine hooba lehele lama kuhigeena noo bahan way marka filaardi irkilinga mawlan walba filoy ama ahlul sunana nagatoy ama dawladu nagatoy langa madajay ka dhigi doontaa warwar ma haysiin ahlul sunana mawlici u dambeey ciidamada dawladda la wareegay haddana xiriir jibisa u soo hartay laamaha amaanka dhuusamareeb waxay dhaheen shirir dawladda loogu soo horjeeda ma lagu qaban karo magaaladaas warnimayahow facebookan waxaan ku arkay boosta ay ku qoran tahay inuu soo dhigay madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo warniyo beenta iska dhaaf wasaaradda boostada isgaarsiinta waa tamoon dheer ku taale goormay facebook dhex tagtay war qoraal facebook la soo dhigan kaala hadlay haylo waananina ariya boostada xaana laga qoraa mooyaa war maya fandhaala ku qoreeka aale war qoraalkan loo ekeysiyay inuu madaxweynaha soo qoray waxaa loo dhigay cidna kama yeelayna inay hor istaagto dib u soo celinta dawladnimadii iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed waxaana ka hadlay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed xasan cali khayre axmed macalin fiqi axmed madoobe iyo muuse biixi commentiga loo ekeysiyay xasan sheekh soo qoray waxaa lagu yidhi lama joogo xilligii kala taliska sheekh shariif midka loo ekeysiyayna waxaa lagu yidhi wallaahi suma wallaahi waan idin bixinaynaa kan xasan cali khayre loo ekeysiyayna waxaa lagu yidhi cidna kama yeelayno inay nacabsi geliso axmed macalin fiqi kan loo ekeysiyayna waxaa lagu yidhi 1991 ayaa la noqonaya axmed madoobe qoraalka loo ekeysiyayna waa lagu soo qoslay muuse biixi qoraalkiisana waxaa lagu yidhi isla meelaysta waad handaraabantihiin war waxaad ka tagtay qoraalkii cusubna loo ekeysiyey oo ahaa ceelasha loo guuraa war waxaad ka tagtay sheerkii loo ekeysiyey dani inuu sheergareeyey adna waxaad ka tagtay maxamuud sayid aadan oo waxoo dhanba baloog saaray waxaad ka tagteen duqa magaalada cumar fiinish oo yidhi magaalada nabad ha loogu wada noolaado war waxaad ka tagteen jaamac iswaalo twitterkiisa ku soo qoray we have to work political stability together warna miyaw lafta garan laagi saariya ka tabteen horta laakiin maysiin lahaa hawl kama daalin weli waa hogadi howl kama daalin weli waa hogadi warwar ma haysaan maanta waxaa kulmay labada gole ee baarlamanka waxayna ka doodeen habraaca ansixinta dastuurka warwar ma haysiin gudoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal senator cabdi qaydiid oo hadle wuxuu yidhi intuusan buunku nagu yeerin aan meelmarino dastuurka si loogu gudbo doorasho dadban doorasho jiifta doorasho taagan iyo doorasho fadhida dastuurka yaa diidan dadoodooda qaba yaa waayane jaamacaddii ma la furay asxaabay labadaa maalmood kaamirada iga hadlaysan war naga aamusa magaaladiiaba qudaartii qaaliyowday war yaa dastuurka kalamaan u xil saaray waa yaabe wasiir xoosha wadhanta allah u naxariiste kalamaane idinka waa ladin falanfila war yaa uni firinfirniisa ay ku kortee aryaama beeraan hamuga nala falanfila